munaasabadan xuska maalinta oof-wareenka heer caalami oo markii labaad ka dal ahaan lagu maamusay magaalada Jigjiga ayaa waxaa halkudhig looga dhigay maalintan aan yarayno wasakhowga hawada islamarkaana aan kor u qaadno adeega asaasiga ah ee sida nafaqaynta carruurta. Munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ee heer federaal iyo deegaanada dalka ayaa lagu soo bandhigay heerka ay gaadhsiisan tahay dhibaatada cudurka oof-wareenku uu ku hayo gaar ahaan carruurta iyo weliba sida looga gaashaaman lahaa, iyada oo sidoo kalena kasoo qaybgalayaasha munaasabadani halkaasi loogu soo jeediyey qormooyin kala duwan oo ka hadlaya cudurkan iyo sida deegaanadu ay u kala duwan yihiin wax ka qabashadiisa. Waxaana gabagabadii munaasabadani ka deegaan ahaan waxa laga qabtay cudurkan iyo ahamiyadda munaasabadan warbixin naga siiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowladyahanka Soomaalida mudane Maxamuud Maxamed Cabdi. xuskan oo maanta halkudhigiisu ahaa aan yarayno wasakhowga hawada, aan kor u qaadno daryeelka iyo nafaqaynta carruurta si aan u yarayno carruurta uu ku dhacay xanuunkani. Si guud xanuunkani waxa uu yahay iyo dhibaatooyinka uu dadka ku hayo ama ku hayo carruurta da'doodu ka yartahay 5 sano waa wax cad oo in badan aynu xafiis ahaan iyo ka wasaaradda caafimaad ahaan aan u dejinay qaab aan ugu wajahayno xanuunkaas. waxaa hadda ka hor la sameeyay dadaalo fara badan oo xafiiska caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dalkuba ay fulinayeen, taasoo sababtay in ka dal ahaan uu isdhimo xanuunkani 52% oo hadda uu marayo. waxaan isleenahay haddii dadaaladaasi la sii xoojiyo waxaa hoos loo dhigi karaa carruurta uu xanuunkani haleelayo. ka deegaan ahaan waxaan sameynay ama laga qabtay xanuunkan in hoos loo dhigo in la tababaro 1148 shaqaalaha fidinta caafimaadka ah oo degmooyinka iyo xarumaha caafimaadka ka shaqeeya si loo yareeyo xanuunkan. ayaa waxaa la barayay qaabka loo maareyn karo oo fureenka ilmaha uu haleelo iyo sida durba looga hortagi karo inuusan xaalad khatar ah oo ama oxygen u baahata ama u baahata in hostaal la seexiyo uunan gaarin ilmuhu in isla health postiga ama goobta caafimaadka lagu daweeyo. waxaa kale oo dadaalo badan laga sameeyey 3 isbitaal oo deegaanka ka mid ah ayaa waxaa lagu qalabeeyey qalabka loo yaqaano NICU-ga uu baahan yahay qaybta ciyaalka da'doodu 1 sano ka yar tahay ee si yar in lagu badbaadiyo iyo kuwa markaa dhashayba oo loogu talagalay in ciyaalka xaaladoodu marka ay soo dhashaan xaaladoodu ay khatar ku jirto in lagu badbaadiyo iyo kuwa u baahan care gaar in la siiyo in lagu xanaaneeyo halkaas. marka qalabayntaasi faraha badan iyo tababaradaasi faraha badan ee la sameeyay waxaan isleenahay waxay wax badan ka qaban doonaan yaraynta xanuunkan halka uu hadda taagan yahay. waxaa marka ugu muhiimsan dadaalka la sameynayo in bulshadu ay adeega caafimaadka soo raadsato oo ilmaha intuusan xaaladiisu khatar sii noqonin marka ay ka dareemaan oof-wareenka calaamadihiisa sida ilmaha oo naqasku laga yaabo inuu ku yar dhago, ilmaha oo qufac sameeya, inahaas oo calaamadaha ugu horeeya marka ugu horeysa uu waalidku ama ilmaha dadka kaargareynaya ay dareemi karaan inay durba la yimaadaan goobta caafimaadka ama xarunta caafimaadka ugu dhow. haddii xarunta caafimaadka wax ka qaban weydana waxaa la sameeyey nidaam referral oo looga soo qaadayo xarunta oo la keenayo isbitaalka. marka waxaan isleenahay si guud xanuunkani haddii bulshadu ay fahanto oo ay u arkaan inuu xanuun halis ay yahay, carruurtana dabar goyn kara, in ay isticmaalka adeega caafimaadka loo fidiyey ay ka faa'iideysan doonaan.